السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan bilaabno koorso ku saabsan C language weliba qaybteeda ah basic programs inaan maanta bilaabnayo rabnaa. teamka soo diyaariyay waa computer science team, CS team weeyaan. koorsadani si aan u bilaabno waxaa u baahannahay kow inaan helno softwarekaasaan ku rangaray lahayn koodkaan qorno. wixii faahfaahinaa amba cashiro badan waxaad ka heli kartaa csteam.so. sidoo kaleeto email-ga csteam.co@gmail.com aan usoo diri kartaa. sidoo kaleeto info csteam.so na email aan usoo diri kartaa. marka maanta waxaan arki doonaa waa cashirkeena koowaad, waa lesson 1. waxaan arki doonaa sida loogu shubo softwarada noocaad isticmaali lahayd saad ugu shubatid computerkaaga ayaan isla arki doonaa maanta. so waxaan tegaynaa meesha kugu jira tegay my computer. aniga wuxuu igu jiraa programs. meeshaan waxaa ku jira code block iyo turbo C++. waxaan isticmaali doonaa code block. qof baa si u isticmaali jira maaha labadan keliya in lagu isticmaalo softwarada lagu rangarayo programmada. software dhowraa jira isticmaala kuwa dev ++ isticmaala, qofba si u isticmaala. marka maanta waxaan isticmaali doonaa code block. code block ayaan rabnaa inaan computerka ku shubno. waxaa leenahay yes. shaashada ugu horeysa noocan ayaa kusoo baxaya. waxaan leedahay next, I agree, next, install. computerkaagi ayuu ku dejinayaa. intuu ka buuxsamaya sugeynaa. intaanoo files ayuu computerkeena ku shubaya. koorsadani waxay ka koobnaa doontaa cashiro badan, lesono badan. waxaanan isku dayi doonaa inta ugu muhiimsan inaan qorno basic programming aan qorno inta ugu muhiimsan. marka haddaad u baahan tahay koorsan idoo dhammaystiran waa inaad raadisaa, waad helaysaa insha allah. sidoo kale hadaad u baahan tahay cashiradeena videoga waxaad ka heli kartaa pagekan ku leenahay kanaalka youtube-kan ku leenahay. kanaalkaas oo ah waa computer science team weeyaan. kanaalkaanaad galaysaa. kanaalkaa markaad gashid cashirada dhan waa arki doontaa. so code bloggii sidaan ayuu kusoo saarayaa. waxaan ku leeyahay hadda horkaaga soo kayaa miya no leh. kadib waxaa leenahay next, finish. iminka code block computerkeena wuu ku jiraa. naga xirkan aaway waa ka code block inoo soo kici. code block waa kaa wuu soo kacaya. waa open source cross blad IDE-da waa environment-ga lagu qoro codeka. waa integrated development environment. waa kaasaan ayuu usoo kacayaa. sidaan markuu usoo kaco waxaan rabnaa inaan sameyno inaan code cusub qorno.
waxaad tigi kartaa file inaad tagtid new aad tirahdid waxaa leedaha file aa leedaha new empty file waa kaa waa furmay ama maahe waxaa leenahanay calaamadaas sare balasta new file empty file ama maahe si ka fudud oo jirto ah inaad dhahdid sir riixdid control shift n waa uu furmay baalkii code waa uu furmay bal aan tijaabino code kugu horeeyaan qorno waxaa leenahanay horta inoo save garay control s way save garayntu amaba meeshaad inaad tagdid amaba file baad tegaysaa save file aad leedahay waa control s aad leedahay shaashada meeshaad tigleeda ku soo baxaya markaas waxaa leenahanay hello world inoogu save garay hello world dot c waa lagama maarmaan dot inaad sheegtid waxaad qaadanayso waa dot c waa lagama maarmaan waxaa leenahanay noo save garay hadda aan qorno programka ugu horey waxaan leenahanay hash include stdio dot h hash include stdio dot h maxaa laga wadaa waa dhamaystirna u imaan doonaa waxaan leenahanay main labadii bil aan furaynaa inter baa leenahanay sidoo kale open brace close brace ka furaynaa markaasaan leenahanay printf inoo daawac waxaa la daawacayaa programka ugu horey oo ah hello world inoo daawac semicolon hash include stdi waa header fileki weya waxaa lasoo gaabshay standard input output dot header mainkii waa functionkii labadan bil waa open brace iyo close haddaa midkan yar ka tago ma shaqeynaya waa open iyo close dhexdooda waa inaad ku qortaa printf waa function kaasoo wax soo daawacaya weya sidoo kale function weyn maadaama function labada bil furaysaa hello world string waa hadal caadi waa inuu laba quotation lahaadaa wax walbo sidii lagu qorayna if waxaa lahay statement walba waa inuu udambeeya semicolon markaasaa leedahay meesha laga ran gariyo kana waxaan leenahanay run yes leenahay marka waa ka uu soo baxay hello world waa ka geeska ka muuqdo hello world sidoo kale qaybtan waa tigi kartaa billi waa dhigi kartaa si automatic uu soo kacaya maanta waxaan baranayna un casharkeena koowaad bay waxaan ku baranayna un sida computerka loogu shubo barnaamijkaad isticmaalayso softwarekaad rabto ahaadee sidoo kale code ugu horeeyeyna hello world waa soo bandhignay insha allah koodadkeena iyo casharada intaan eeg sii socon doontaa waxaa idin jiraan isla soconno waa mahadsantiin magaceyguna waa Sikriye Maxamed waa mahadsantiin.